magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha dhameystirka doorashooyinka dalka, raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada, diyaarinta habraaca doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyo qodobo kale. Kulanka waxaa shir gudoominaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaana xarunta ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Dhinaca kale golaha siyaasiyiinta Somaliland ee uu hogaamiyo Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa soo saaray baaq ku wajahan shirka Muqdisho uga furmay madasha wadatashiga qaran. Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ee maanta shirka uga furmay magaalada Muqdisho waxaan ugu baaqaynaa in si niyad wanaag iyo Soomaalinimo ku jirto ay noola galaan xal u helidda khilaafka ka taagan maamulka iyo madax banaanida doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Somaliland. Sidii aan marar badanba qoraal iyo afka uga soo gudbinay qodobo ay tahay in la kala doorto kuwaasi oo noqon kara xalka kama dambaysta ah laakiin nagala diiday, haddana waxaan soo jeedinaynaa in si doorashadu u qabsoonto in la qaato talooyinkan hoos ku qoran. 1. In la dhiso guddoon reer waqooyi ah oo doorashada maamula. 2. In si cadaalad ku jirto loo mideeyo labada dhinac ee guddiga SID ee Somaliland ee la kala jebiyey loona sameeyo guddoon midaysan. 3. In habraacyada la sameynayo lagu tixgeliyo duruufaha u gaarka ah doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland oo mudnaanta iyo miisaanka ay leeyihiin la siiyo odayaasha dhaqanka ee ku jira 135 oday. 4. In goobta doorashada iyo ammaankeedu uu noqdo mid la isku halayn karo oo ay u siman yihiin odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka iyo musharaxiinta si furanna ay u imaan karaan warbaahinta iyo goobjoogayaasha kale. Gudoomiye Cabdi Xaashi oo golaha siyaasiyiinta Somaliland ayaa qodobadaas ku biiriyay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uga furmay magaalada Muqdisho. Cabbaas Xuseen Muuse, 5TV, Muqdisho.